haddana waxaan rabaa in aan u yeero runtii shakhsi aad iyo aad u qiimo badan oo aas-aasihii runtii hay-adda bisha cagaaran qofay ku dhalatay maskaxdiisa ka timid ku fakeray run ahaantii qofkaas qof kale ma waa shakhsi mudan maanta marka waxaa soo socda aad daawataan magaciisa biyo dahab in lagu qoro qof kale ma ahan inay ila soo dhaweysaan aan codsanaya waa madaxa ugu sareeya hay-adda bisha cagaaran cabdidaahir qoryoole loo garan ogyahay cabdi xasan soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan sida la sheegay waxaan marka hore aan ka hadli doonaa sida mawduuca halkan ay ku qoran tahay waxa waaye waa maxay sababta bisha cagaaran ama loo aasaasay ama sababta bisha cagaaran ay geedu u abuurayso marka hore waxaan rabaa idea oo ah xagee ka timi in geeda la abuuro dabcan marar badan waa maqasheen adduunka wadan walbo inay geeda abuuraan iyo cimilada kululaanayso iyo waxyaabahaas laakiin haddaan fiirino marka Soomaaliya kasoo bilaaw 40 sano dagaalada sokeeyaan ku jirnay ka hore dalku waxaa ku socday waxa la yiraahdo xaluufin ku socday oo deforestation ku socday oo xooli ah marka 1995kii ayaa khubaro scientist ayaa waxay bilaabeen inay maqaale ay ka qoraan ay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay dal walba inay geeda abuuraan in 1995kii ka bacdi looma qaadanin serious looma qaadanin ka bacdi 2001kii ayaa waxaa bilaabatay UNEPA ama waxa loo yaqaano UN environmentalka ayaa waxay bilaabeen inay yiraahdaan from 2021 ila 2030 in wadan walba uu geeda abuuro now marka fiiris marka Soomaaliya maadaama hay'adda UN ama UNEPA ma ay wadamo walba ay ku qasabtay ama in ay hirgeliyaan in geeda ay abuuraan then dalka Soomaaliya waa dalka kali adduunka maanta hadaa fiirisid ama statistically ahaan marka la fiiriyo waa dalka kali aan geed abuuris uusan ka jirin then halkaas markay marayso waxaa dhacday marka inaan fiirino marka ama fikirka oo ah in aan samayno hay'adan oo bisha cagaaran ah maadaama waska taqaanaa Soomaaliya wasiirada iyo dowladda ahaanta qofka shakhsiga wuxuu ku joogaa waqti ku socda waqtiga marka qof waqti ku socdana way adag tahay inuu wax qabto ama inuu wax uu sameeyo then marka fikirkan marka waxaa bilaabatay oo ah bisha cagaaran in aan hirgelino waa ilaa mahadiisa dad badan oo aragtidii oo noola qaatay ayaa maanta bisha cagaaran kuwa muuqdo iyo kuwa aan muuqaninbo waxay soo jirsatay labada sano ayay soo jirsatay then sababta marka geedaha u abuuran maxaa waaye haddaa fiiriso marka Soomaaliya maqaalo badan oo artikalo badan ayaa laga qoray inta taas u garay marka waxaan fiiri statistiga East Africa maadaama East Africa ku jirno Soomaaliya marka waxay noqotay dalka kali aan geed abuursiisan ka jirin compare marka fiirino wadamada dariska noolaa Ethiopia hadda ugu dambeysay waxay xirtay 350 million geed ay one day ku abuureen haddaa fiiriso marka Kenya madaxweynaha hadda jooga Ruto wuxuu saxiixay decree oo ah 15 billion geed in la abuuro oo dalka Kenya ay abuuraan waa ogtiin Kenya waa dal already oo cagaaran waaye oo environmentalist ama dad wadan wada green ay geedaha ilaaliyaan Kenya waxay abuurtay 750 million geed ay abuureen I think 2 to 3 months ago 750 record kala geliyo haddaa fiiris marka Tanzania waxay iyagana sameeyaan 230 million geed ayagana ay sameeyaan Soomaaliya marka madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu decreeto ku sameeyay 10 milyan oo geed in la abuuro anaga taas ka jirno anaga taas aawadno marka waxay dhacday Soomaaliya marka waxaan siri
waxaa jirta 1918 ama 1917kii philosophy oo dalka Jarmalka Immanuel Kant dhahay wuxuu leeyahay aqoonta waxa ugu horeysa qofka waa inuu dareen leeyahay so qofka hadduusan dareen lahayn uu aqoon u yeeshto then aqoontii haddaysan wehelinin dareen aysan wehelinin then waxay noqonaysaa ma shaqaynayso ama shakhsi wuxuu noqonayaa tiisi bas inuu fiirsado oo tii environment ama tii danta guud ee dhanba uu hilmaamo marka wuxuu leeyahay aqoonta waxaa ka horeyso daryeelka ka horeyso marka waa inaad dareen leenahay dareenkaasa marka wuxuu keenayaa waxay kutusaysaa marka everything ama environmentiga ama surrounding adiga agtaada in aad ka jawaabtid marka dalalkaas marka statistical marka fiirs wadamadii marka ay gaareen intaas milyan waxaan isweydiinay okay Soomaaliya marka yaa u maqan waa marka so Soomaaliya marka waxaa u maqan marka meelahan Starbucks ama cafe maxaa la yiraahdaa cafeynero maalin anigoo fadhiyo oo barnaamijka marka koow aan diyaarinayo ayaa naag cadaan oo waayeel waxay tiri maxaa sameynaysaa then waxaan ku yidhi project ayaa rabaa inaan hirgeliyo oo ah geeda abuuris xagee ka timid igu tiri marka waxaan ku yidhi Soomaaliya markaas waxay tiri Soomaaliya way u baahan tahay geeda ay tiri laakiin waxaan ku weydiinaa dadka Soomaalida ma ka dhaadhicin kartaa in ay geeda ay abuuraan markaas waxay tiri you are doing good job laakiin try to be hard tiri in dadka Soomaalida ka dhaadhacis in geeda ay abuuraan so marka TV-da marka wadankan Soomaaliya waxay arkayaan inay tahay meel saxara oo desert ay tahay hadda Soomaaliya desert ma tahay yes 1980gii markaan fiirino marka inta marka waxaa dhacday marka qolada report waxaa jiraan UN ay soo saareen oo ah waxay leeyihiin marka Soomaaliya marka markii la gaaro 2030 temperature-ka degree Soomaaliya wuxuu noqonayaa 1.4 ilaa 3.4 degree ayuu noqonayaa that means waxaa laga hadlayaa 5 sano waxaan joognaa 2024 6 years kadib waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxay noqonaysaa temperature-keeda oo qoraxda ama kuleelka 1.4 iyo 3.4 degree ayay noqonaysaa then report kala imaaday waxay leeyihiin marka Soomaaliya waxay noqonaysaa 1.5 2.3 degree ayay noqonaysaa by 2050 markii la gaaro then haddana report kala imaaday waxay leeyihiin Soomaaliya waxay noqonaysaa 1.4 iyo 3.4 degree 2080 ayay noqonaysaa marka waxay ula jeedaan marka oo ah hawada ama cimilada waxaa qaboojiso geedaha ayaa qaboojiya meelaan geed lahayn marka waxa waa means meelaan dabeel hawo ka jirin waay tusaale yar haddaa fiirsan dadka Soomaaliya tegay maraan warshaqa u sii socday ayaa waxa dhacday gaariga ku jirnay meelaan istaagna inaa waaynay aan neefta xataa waxa way ugu dhigaysaa hal geed aan harsaa xataa ma jirto so marka haddaa fiirsa marka riboodada oo qolooyinkan UN ay ka diyaariyeen Soomaaliya waxay leeyihiin marka haddaa fiirsa riboodkaas in 2001 ilaa 2004 Soomaaliya waxay dhumisay 429,000 acre oo dhul ay dhumisay that means waxaan dhuminaynaa dhulkii kaymaha ahaa oo wadankii ayaa dhuminaynaa so that means waxa waaye every year sanad walba Soomaaliya waxay dhumisaa 4.5% oo dhulkii beeraha ayay dhuminaysaa marka that means waxa waaye wax geedo oo Soomaaliya oo la abuurayo ma jirto waay marka that means Soomaaliya waxay noqonaysaa marka meel saxara oo dadka ay ka guuraan ay noqonaysaa saameynteedana marka waa ugu tageynaa dhibaatada hadda ay Soomaaliya ka jirto waay marka then report kala imaaday waxay leeyihiin from 2000 ilaa 2017 hadana waxaan dhuminay over 686 acre oo dhul ayaan dhuminay marka that means waxa waaye dhulkii hadda anaga asaabisha cagaaran ahaan markaan bilownay inaan geeda abuurno ma aaminaysiin meelaha hadda Soomaaliya geeda looga baahan yahay waxa waaye dhulkii oo geedii lahaan jiray waay tusaale magaalo yar oo waxaan laga soo wacay oo Jowhar u jirta 14 kilomitir u jirta waa Hirshabelle
14 kilometer jiro iyo magaalooyin badan waxa jira dhulkaas adiga surrounding Hirshabelle dadku waxay ugu baahan geedo u baahan waxay kuleeyihiin waxa u baahan geedo u baahan marka haday sabrada xataa ku soo diraan geedihii wadanka yaalbaniis waxa way mar hore waa la xaluufinoyaa oo haddana ay runtii dawladda ay soo saartay in aan geed la jari karin now ujeedin marka adeerkan ujeedin dhibaatada Soomaaliya marka haysato waxa waay especially dhulka xeebaha subax walba markuu soo kaco gurigiisa wuxuu ka celiyaa bacadkaas uu ka celiyaa means waxa loo diray shaqo oo joogto ah halkii la rabay in geedo la abuuro adeer uu soo kacayaa subax walba gurigiisa wuxuu ka ilaalinaa inaysan bacadka guriga aysan laqin wuxuu sameynaa marka bacadkaas wuxuu uga celinaa gacanta uga celinaa that means waxa dhuntay fahamkii oo ahaa in dalka uu baahan geedo u baahan yahay ama dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan halista ay leedahay in aan ogaano ay taas keenaysaa marka now meesha waa dhulka xeebiyo waa hal geed oo ku yaalo dhulkaas oo dhan maray hadaa aragtaan hadda deegaanada marka waxay noqdeen dhul aan la degin ayay noqdeen complete especially meelaha aad u duugmaayo waxa dhulka xeebaha meelaha ay deganaa hadaa fiirisaan sidoo kale kulub diinowda hadaa fiirisaan dhammaan meelahaas waa meelaha hadda ay duugmeen waay sababtay u duugmaan marka waxa waay tusaale kale waan tusay meesha marka waa kulub diinowda maxaa la yiraahdaa cadalle iyo maxaa la yiraahdaa warshed dhulkaas oo dhan xeebaha waxay kamid ay sidaan u yihiin sababta hal geed oo ku yaalo male dadkina haddana fahamkina marka waxa waay inay geedo u baahan yihiin ayaa ka baxday waxa dhacda marka tusaale waxaan geedo geynay macana geedo geynay geedii marka hal geedkii ugu har anagoo bixinaya maama ay tiri waxay tiri geedkan isii markaas waxaan maama gurigaaga waa u jeedaa ariga ayaa ku xiran markaas waxay tiri arigan anfac kuma qabay geedkiisii si aan u korsado aan har u helo muddo gaaban ka bacdi leen maamadii markay waxay noqotay nasiib waxay heltay halkii geed inaan siino sababta ay waxay leedahay ariga aan haysta anfac kuma qabo laakiin geedkiisii sababta meelo badan dad Soomaaliyeed waxay leeyihiin waxay degan yihiin guri jiingada ay leeyihiin haday guri jiingada leeyihiin means waxa waay geedana meesha ma laha now afirana marka waay Soomaaliya iyo Madagascar halkan Madagascar waay dadka Madagascar qofna uma tagin iyaga naftigo iyaga keligooda waxay sameeyaan marka inay isku imaadaan ay sameeyaan maxaa la yiraahdaa ay geedahaas ay abuurtaan marka meeshan waa Madagascar waay maadaama Madagascar ay tahay waxay dareemeen Madagascar waa taqaana waa jasiirad oo bad dul saaran waay dadkii deegaanka waxay dareemeen in uu bacad uu duugaayo ayay dareemeen maadaama ay dareemeen inuu bacad duugaayo deegaanadooda dadkii waxay sameeyeen inay isku imaadeen ayaa waxay bilaabeen si ay jasiiradooda aysan u duumin inay geedahaas ay abuuraan dad sabarkaas marka waxa waaye 5 sano ka hor waay compare 5 sano ka hor maanta meesha ay joogaan waxaa jirta hay'ad ku taala Oxford ayaa waxay soo direen maqaalada ka soo direen maraan arrimaha Soomaali weydiinaayo waxay soo direen book oo Soomaaliya geedaha ay lahayd oo ku haboon in lagu abuuro oo ku saabsan arrimaha environment ahaana ay soo direen marka waa kuwan dadkii deegaankii dhan marka waxay sameeyeen mobilization ayay sameeyeen inay isku tagaan ay tuuladooda inay geedaha ay ku abuuraan anagana Soomaali ahaan maanta waxaan joognaa dhirtii inta hartay oo ah uu dalka lahaa ayaan xaluufinoona oo waxaan sameeynaa dhuxul laga shiido waxay dhirtii noo noqotay business ay noqotay ganacsi ay noqotay marka waxaan fahmi laanahay halista imaanayso haddii geedaha oo la guro maxaa ka dambeyn doonta waa marka waa kuwan hadaa fiirisaan sawirada maalin walba hadaa tagtid xamar banaankeeda waxaa arkaysaa baawuro konton ka badan looriyaal ee dhirtii oo wadanka dhan oo saas ay u yihiin arkaysiin marka now bisha cagaaran marka waxaan bilaabnay marka last year sanadkii hadda tagaa waxaan abuurnay 80 kun oo geed ayaan abuurnay anagoo dawladna ku tiirsanaan hay'adaha aan ku tiirsanaan isku xilqaanay annaga bisha cagaaran ahaan iyo dad kale Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa oo nagu kaalmay in aan
fikirkan uu socdo oo meel walba inaan geedo geyno. Now dhibaatada marka waxay ka tahay inta markii hadda meeshan waxa waaye Soomaaliya waa hay'adda environment-iga waaye. hay'adda environment marka waxay samaysay intaan anaga marka barnaamijkan aan bilaabin waxa wadanka la keenay geeday banaanka keenay dawladda oo ah maadaama environment oo la rabo in geeda oo waxay rabeen 100,000 geeda waxa laga keenay dalka dibadiisa laga keenay oo ah inaan environment-ka Soomaaliya aan wax ka qabano. ilaahay raxmadiisa marka waxay saamaxday markaas Soomaaliya asafisha cagaaran ahaan markaan bilawnay barnaamijkan dawladda geeda damba dalka dibadiisa laga keeno halkaas ay ku istaagtay oo ah halista ay leedahay markii ay waxaan u dabaldegnay xataa in geedihii oo wadanka laga keenay dalka dibadiisa laga keenay then waxaa la sameeyay daafura loo sameeyay halista ay leedahay markaas lagama fikirin markaas waxaan u tagay wasiirka waxaan ku yiri wasiiro shaqo fiican aan qabanayno siin laakiin geedaha markii banaanka laga keeno halis ayay wadataa oo ah geedka waxay wataan caray wataan maadaama ay caro wataan caro oo geed wadan kale marka laga keeno saameyn waxay ku leedahay wadankaaga ayay ku leedahay oo ah waxaa jirta waxa la yiraahdo soil contamination waxay la sameynaysaa caradii oo wadanka laga keenay haddii cudur leedahay waxay la falgalaysaa caradii wadankaaga ayay la falgalaysaa taas marka waxay keenaysaa haddii caradaas tusaale ahaan ay wadato waxaa jirta waxa la yiraahdo lead ama bir oo kamid ah ay ku jirto carada haddii ku jirto ee caradaada oo meeshii ku abuurto halkaas cawska ka soo baxa ariga cuno arigana ay dadka ay cunaan then leedku waxay ka dhex muuqanaysaa qofka bini'aadamka jirkiisa ayay ka muuqanaysaa then waxaa arkaysaa qofka nabar ka soo baxay ilaa amaadiisii markaan bisha cagaaran aan bilawnay waxaa istaagtay geed damba dalka dibadiisa laga keeno ayaa istaagtay oo ah practically dadku waxay arkeen practically dadku waxay arkeen in fikirkan la sameyn karo markaas waxa ugu dambeysay in geed damba dalka dibadiisa laga keeno that means waxaan ka hor istaagnay xataa geedaha marka banaanka laga keeno waxay leeyihiin geed wadankaaga ku habboon iyo geeda ku habbooneen tusaale hadda marka wadankan imaanay ama dibadda imaanay waxaa jirto geedo oo na dhibaayo aan ka qaadno hay fever aan ka qaadno hadda Soomaaliya marka joognay badankana waxa dhici karta in hay fever aan qabin laakiin inta marka imaanay geedo waxa jirto oo anaga na dhibaayo ayaa jirto aan la qabsanin so marka wadan walba marka wuxuu ilaaliyaa marka geedaha wadankiisa ayuu ilaaliyaa ama waxa loo yaqaano indigenous tree loo yaqaano ayuu ilaaliyaa then dhirta markii banaanka laga keeno halista ay leedahay marka waxa waaye sida u jeedaan waxay keenaysaa marka saameyn ayay leedahay oo isbedelka deegaanka kordhinta cudurro ayay leeyihiin markii geed banaanka laga keeno sababtoo waxa waaye sidaan ii sheegay geedka banaanka laga keeno wadankaaga keentid wuxuu saameynaa xataa kaaga wadanka uu saameynaa wuxuu saameynaa carada uu saameynaa marka taas waa marka midda aniga aan mar walba aan ku celcelinay for the last 2 years ama maqaalo ama meel walba aan qorayn waxa waaye in aysan good aysan ahayn haddii geed banaanka laga keeno oo wadanka laga keeno iyadoo la sameyn baaris aan la sameyn taas mid waxaan ka hadlayay midda oo ahayd saameynta ay ku leedahay carada waaye sababtoo waxa waaye carada keli waxa waaye wadan walba wuxuu ilaaliyaa carada ayuu ilaaliyaa carada midda waxa waaye waxaa jirta kikooyada kuwa la dhaho kikooyada qabiilka kikooyada la dhaho keeyidaga cunuga markuu dhashay saddex shay ay ugu dardaarmaan oo ah cunuga waxay yiraahdaan ha wasaqaynin carada waa midda adiga ku qoodaysa waaye then carada waxa waaye waa midda marka adiga dhimatid oo ah oo lagu duugayo waaye waxay dhahaan marka carada waa midda iyada wadanka ama deegaanka oo ilaaliso marka waxay ka hadlaan marka waxa waaye kikooyada hadda deegaanada waa 20 milyan waaye oo tiro badan waaye oo deegaan yar degan isku cariiriya haddana waxay ilaaliyeen deegaankooda ilaaliyeen in carada loo wasaqeyn ayaa waaye marka anaga badan marka waxaan ku celcelinaa waxay tahay geedka iyo carada inaysan kala maarnin waaye geedaha marka meesha geed lahayn waaye marka cilmi baaris badan ay sameeyeen waxay leeyihiin meesha geedka la meeshkan geedka lahayn waxay ku tilmaameen meelaha geedaha lahayn
bulshada ku nool as mentally ahaan ay u xanuunsiin run miya been miya arano laakiin waxa jirta article laga qoray oo ah geedaha meelaha geedaha dadka oo ku nool oo geed leh meesha geed lehna la isku fiiriyo marka tusaale yaraan siinaya marka qofka bilaadanku wuxuu neefsadaa wax loo yaqaan CO2 ayuu neefsadaa oo ah markaan qaadanayno waxaan rabaa inaan qaadano oxygen ama hawo oo fiican inaan qaadano waa laakiin meeshii ay ahayd marka oxygenkii oo la rabay anagoo tuurayno CO2 tuurayno haddana waxaan qaadanaynaa anada CO2 dib u qaadanaynaa taas marka waxay keenaysaa lagu leeyahay qofka maskaxiyan inuu xanuunsado oo ama mentally uu yahay oo waxay leeyihiin dadka meelaha geedaha iyo dhirta iyo way ka degan yihiin dadka kale meelaha geedaha aan lahayn haddana sida ay qorayaan waay now marka waxaan dadka aan ku dhiirigelinaa waxa waaye meel walibo in ay geedahaas aan ilaalino ama geeda lagu abuuro ayaa mar walba dadka u sheegay marka ma kala maarmaan geedaha meelaha leh iyo meesha geedka lahaynna ma kala maarmaan oo waxay yihiin waa isla socdaan haddaba meelaha dhirta lahayn marka say saameyn u samayso marka geedaha iyo haddana waxaa isla xiriirto dhaqanka hidaha iyo dhaqanka waa haddii geedihii marka oo la guro waxaa meesha haddana ka baxayo hidaha iyo dhaqanka ayaa ka baxaya hadda Soomaaliya waxaa la la'yahay cawdii wax lagu tolo jiray dariintii wax lagu tolo jiray wixii hidihii dhaqanka la sameyn jirayna waxaa saamaysay xaluufinta dhirta la xaluufiyo ayaa saamaysay sidoo kale cuntadeena waxaa waaye haddii meesha geed laheedana saameyn ayay iyadana ku leedahay iyo hidaha iyo suugaanta Soomaalida waa aragtay markay heesayaan heesa waxaa ku jira meelo geeda iyo dhir iyo webiyaal ayaa ku jira haddaba marka waxaa lagu leeyahay waxay saameyn u yeelanaysaa haddana heesihii la qori jiray xataa hadhowda way isbedelaan haddii meesha geeda aysan jirin taas waa marka iyo waxay saameyn ay ku yeelanaysaa hidaha iyo suugaanta iyo ayay ku yeelanaysaa now marka anaga waxaan rabnaa in dadka Soomaalida aan ku dhiirgelin inay geeda abuuraan wiilkan waxaa la yiraahdaa Xasan la dhahaa xaruntu jooga wuxuu gacanta ku hayaa geedo waxaan sameynaynaa oo ah dadka beeralayda ama dadka raba xataa ganacsiga ahaan xataa Soomaalida inay u fikiraan oo ah in aan sameyno geedaha sida fruitka oo kale ama cambaha oo kale ama zaytuunka oo kale ama liinta oo kale halkii la sugi lahaa 3 sano 4 sano 5 sano la sugi lahaa oo ah in aan ka dhigno geedka cambaha maadaama Soomaaliya anaga ma qabno maanta beeraha dhan hadaa tagtid hadda maraan ku wareegay sawiib aan wala iyo afgooyo ma jirto beers oo ku yaalo 100 geed oo camba oo xariir camba waxaan ku abuurnaa wabiga jinkiisa lagu abuuraa cambaha noo abuurana waxa waaye waa cambayaashii awoobayaashii in hore aan ka dhaxalno now marka waxaan sameynoonaa oo ah cambo oo by the time uu gaaro 1 sano iyo bar ugu yaraan 2 sano markuu gaaro inuu geedkaas cambaha isku dhali karo marka waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino maxaa la yiraahdaa dadka beeralayda ama dadka raba inay geeda abuurtaan ama aan sugi karno maadaama dadkan Soomaalida waxaan ahnay degdegsiinaan ugu jiro taaraada geedka cambaha wuxuu leeyahay 20 sano la sugayaa iyadan inaan ka dhigno hadduu ilaahay for at least 2 years oo ah waxaa jirta waxa la yiraahdo agroforest oo ah in la isdhexgelin karo beerashada caadiga iyo geedihi caadiga in la isdhexgelin karo marka waxaan hadda alxamdulillah aan ku guulaysanay oo ah in dhirta waqtiga oo gaaban inay ku dhali karaan oo ah haddaad ay wadaada wuxuu weydiiyay wuxuu yiri genetic modification miyaa uu yiri waxaan dhahay waxaan ama geedka inuu waqti gaaban ku dhalo ma aha genetic modification ma waa geed natural oo caadi ah aan waxba ka dugneen geedkii caadiga oo dalka Soomaalida uu lahaa waa halkan aan joogo marka waxa waaye abaydhaxan waaye abaydhaxan waxa ku hartay geedahaas ku hartay waxa waaye mangrove geedaha la dhahay waaye mangrove ki meeshaas ku yaalo kulli waa la xaluufiyay completely waa la xaluufiyay then marka waxay noqotay waxaan dhameynay 20 geed ayaa ku hartay oo ah mangrove haddana adduunkana waxa aad loo dheergeliyaa in la abuuro malaayiin geed oo mangrove ah in la abuuro oo in la abuuro ayaa laga shaqeynayaa hadda dhawaan marka waxaa la ogaadaa hadda meelahan Japan iyo South Korea meelahan oo tsunami u dhibay inuu barrier u yahay darbi inuu u yahay geedahan mangrove marka tana marka waxay keentay dhibaato badan ay aniga hadda Soomaaliya ama bish cagaaran ay ka shaqeynayso kontinent geed waxa dhici karta haddii hadda aan la badbaadin in haddana la xaluufiyo then aniga marka hadda waxaan sameynaynaa geedkan mangrove-ka haray
eegi hadda badinoona in aan badino aan ka dhigno geedo badan hadhowday oo dhaxal noqonaya mangrove in la heli karo hadduu ilaahay waxaa dhuntay marka meelo badan waxaa jirta hadda shimbirihii iyo kale hadda maalin maqaalan aqrinaya oo shimbirihii hadda Soomaaliya haddii marka geedihii lahayn marka that means waxaa saameynaysa shimbirta saameynayso then haddii shimbirta la waayana maxay noqonaysaa marka anfaca biodiversity waxaa loo yaqaan oo ah bilaadanka xabayaanka dhirta intaba way isku baahan yihiin now hadda marka waxaa laga doodayaa oo ah sidee lagu badbaadin karaa biodiversity ama waxa loo yaqaan cayayaanka shimbirta hadda waddankan joogno waxaa laga doodaya maxaa la yiraahdaa shinnida kale shinnida sida loo badbaadin lahaa iyo balanbaalisada sida loo badbaadin lahaa waxyaabahan marka hadda cilmi science waxay ogaadeen anfac wadamada inuu leeyahay meeshan aan ku oolin marka that means waxaa waaye waxay noqonaysaa dadka naftigooda xataa inaysan eegana ku noolaanin marka way isla socdaan ma kala maarmaan bilaadanka iyo cayayaanka iyo xawayaanka kulli ma kala maarmaan way isla socdaan marka haddii hadda Soomaaliya hadda fiirsa 50 years ago waxa wadanka ka taxay liwaaxya ka cararay maroodiga ka cararay waxa ka cararay maxalada gariga ka cararay 50 years kadibna anaga soo qaxna hadana anaga that means waygaas lama fahmin haddii la badbaadina sida hadda Kenya kale ama Ethiopia kale ee loo ilaaliyo anaga laakiin waxayna lama ilaalin marka that means waxa waay eega hor qaxooti noqday anagana qaxooti ka soo daba noqon topigan dhaqaalaha waxa ka hadlaya wadaada ka hadlaya waa ka boodaya marka iyadana ardayda waa marka waxaa noo imaada marka bisha cagaaran ay fursad u heleen arday badan oo iskuulayda jaamacadaha ayaa waxay u heleen fursad u heleen in 2 years ago ma jirin markaan aniga asaasinay bisha cagaaran aan bilaaway ardaydan oo jaamacadaha meel ay practical u tagaan ma jiraan 2 days ago ardayda hadda jaamacadaha noo joogeen keligooda waxay abuureen 1,000 geed ay abuureen for 1 day oo saacada gaaban 1,000 geed ay abuureen so that means waxa waay fursad marka waxaan u abuurnay oo ah oo practical iyagoo xoogooda ee dalka ugu deeqayaan iyagoo haddana ka faa'iideysanayaan aqoontooda maadaama jaamacadaha lagu dhigo beeraha ay ku dhigtaan oo haddana aysan haysanin facility ama aysan haysan then bisha cagaaran marka waxay u noqotay xarun u noqotay oo ah ardaydan inay imaadaan ay practical ay ku qaataan marka at the same time waxa ardaydana xoogooda waxay ugu faa'iideynayaan dalka ugu faa'iideynayaan no bisha cagaaran ugu faa'iideynayaan because bisha cagaaran waxa waay geedaha ay abuurto waa charity waxaan ku bixinaa free ku bixinaa ma gadno geed ma gadno lacag kama sameeyno profit malihi laakiin hadafka wuxuu yahay inuu ID-dan uu socon karo oo wadanka lagu kaalmeyn karo oo geedaha meel walba ay gaari karaan so marka ardayda marka oo joogto marka waxay noogu imaadaan hadda Facebook-dan aad fiirisaan Twitter-dan hadda fiirisaan ama website-dan complete waa arkaysin waxa benefit maanta ku qawaxiin ardaydaasna xoogooda marka waxay ugu faa'iideynayaan dalka ugu faa'iideynayaan geedii meeshaas aan ka qaadna ayaa waxaan rabnaa wadanka meel waliba ay Soomaali ay joogto hadduu Ilaahay waxaan rabnaa in ay geedaas ay gaari karto waxa waaye daahir waaye oo qurba joog oo inta ka tagay dadka qurba joogtada waaye marka ay xarunta tagaan ama saameyn anaga dhan wada leenahay asa qurba joog u leenahay and 1700 AD waxaa jiray that time German lama dheheen waxaa la dhihi jiray Borussia la dhihi jiray boqorka Borussia marka wuxuu yiri aaway uu yiri aqoonyahanada wadankan aaway qof walba aqoonyahan oo dibadda jooga waxaan ka rabaa uu yiri inay wadanka imaadaan qof walba oo German meeshii joogo wuxuu ka qaaday miro ka qaaday oo ah mirtaas in wadankiisa geeyo haduu kii geed heli karo kii fiyoor heli karo kii wax ay heli karo waxay qaadeen wadamadooda ay geeyeen that means waxa anaga hadda qurba joogan aan dibadda joognaa London tan kaliya hada fiirinsa waqti gaaban uu joogo May London uu joogo sadiiqan wuxuu abuuray 500,000 oo geed ayuu abuuray today hada London mo gina fiirsan ila aragtaa the whole London way switch ana waxaan deganaa waan soo waday the whole waan soo wadooyinka dhan way soo bedeleen waxay wada green ay yihiin marka asa qurba joog waxaan haysanaa power awoodaan leenahay oo ah aan qayb ugu noqon karno oo wadankaas oo geed ina abuuri karno ina qayb ka noqon karno bisha cagaar waa hay'ad dadka Soomaalida ay leedahay waa tomorrow ana Cabdi Daahir ahaan
haddaan resign ka qaato bisha cagaaran waxaan rabaa ideadaas inay sii socon karto oo qof kale inuu madax iyo uu sii wadi karo ayay tahay oo ah in ay fikirkaas oo dhir abuurista ay sii socoto ee meel walba ay gaari karta ayay tahay laakiin ma aha fikirka inuu qofka adaa maanta madax ani madax ina ay xataa isku malmalay because waxaan ahay ninka shaqada gacanta ku haya ahay isku maarag madaxda way joogaan oo bisha cagaaran waxaa kamid ah gabdhaha kamid ah marka we wanted in ideada awoodda ee dadka qurba joogtada ay leedahay in ay sii socoto oo ah haddii mir aa heli kartid aruuri mirta ha cuni mirta markaa cuntid ha tuurin mirta keep it meel dhig aruuri meel dhig waxaan xasuustaa markii bisha cagaaran bilaabaya timir iyo mir hadda guriga daa'imad waxaa jirto caaga ku aruuriya mir walba aa cuno ma tuuro meel aan caagan ku guraa sidoo kale asxaabta bisha cagaaran dhammaantooda hadda marka waxay noqdeen mir markay cunaan in aysan tuurin way aruuriyaan intaan qofkii Soomaaliya aadi kar hadda markaan Soomaaliya aadayo waxaan geeyay bac miraan oo inaan geeyo bisha cagaaran inaan geeyo inaan abuurno dalka Soomaaliya in muddo gaaban waxaa arki doontaa hadduu ilaahay idmo different geedo oo ama fruits ha noqdaan oo meelaha laga qaaday qofka mirta uu cuno inuusan tuurin shimbirtan maxaa la dhahaa nutcrackers aa la dhahaa haddii shimbirtan mirta ay cunto aysan tuurin ka warama an hour shimbirtan waxay abuurtaa 500 oo mir ayay dhulka ku abuurtaa waa xikmad ilaahay waay waxaa lagu sameeyay marka research waa la dabagalay waxaa lagu xiray GBC maala ayaa lagu xiray mirta markay cunto ma tuurto ilaahay wuxuu yeelay capacity oo ah in ay keediso mirahaas way soo degtaa dhulkay soo degtaa goday qotaa mirtii gelisaa way dugtaa oo way ka dhaqaaqdaa so why ay u sameynaysaa shimbirtaan waxa kali ay fahantay waxa aniga maanta asaas Soomaali ahaan aan fahmi karin ayay tahay so maxaa baa marka shimbirtaan hadaysan mir aysan abuurin yaa ku amray in mirta ay cunto ay keediso ee haddana ay abuurto waa xikmad waaye oo rabaani laakiin aan la ogeyn hatta dadka sayntisiin markay raacaan National Geography maqaalka oo magazine soo baxo ay sheekadada way ku qornaan marka waxa la ogaaday marka mirtu way cunay way abuuraysaa waa la fiiri waa la dawa galay geeriha marka soo baxaya soo marka xariifa wuxuu yiri waxa u baahan shimbirta inaan Soomaali ku abuurnaa u baahan iyada inaan ka Soomaali la geeyo dabcan uma maleeyahay hatta because waxa waaye aniga waxaan noqon inaan lazy noqon haddii lazy noqon way adag tahay marka laakiin se waxaan u baahanahay sida shimbirtaan oo kale inaan noqono oo anigana mirtii aan tuurin aan aruurino then whoever wadanka u baxay markaas inuu geeyo ama uu abuuro ayaa hadduu ilaahay idmo hooyadan xaruntay timigeeday qaadanaysaa waxay tiri marka maraan la hadlayo waxay tiri geedkan aniga ma harsanayay tiri waxay tiri waxa harsan doona geedkan kuwa oo maanta joogo iyo kuwa imaan doono ayaa harsan doonaan balse waxaan rabaa tiri inaan taariikh ka tago ay dhahaan geedkan waxaa abuurtay awoodtadeena abuurtay inay dhahaan aan rabaa tiri now geed markaa abuurtid ilaahay quraanka meelo badan wuxuu ku sheegay geedku ku sheegay hadalka wanaagsan wuxuu ku sheegay geed sida uu qurxoon yahay uu maxaa la dhahay farms inuu yahay oo adag yahay ayuu hadalka qurxoon ku tilmaamay hadalka qurxoon wuxuu ku tilmaamay geedka markay xididkiisa ama uu halaabano uu ku tilmaamay meelo badan ilaahay wuxuu sheegay geedka inuu sujuudo ayadana jirto geedka inuu sujuudo imagine geedka adiga abuurtay 400 sano 500 sano 700 sano ajirkiisa geedkaas plus intii cayayaan geedkaas ku korno oo iyagana ilaahay u tasbiixsanayo ajirkaaga intuu la ekaanayo marka you have to know geedka naftigiisa waa nafley waay ma jiro geed iska taagnaanaya forever iyadana ma jiro sababteeda goortuu dunidan uu ilaahay abuuray up to now ma jirto geed waqtigaas la abuuray iska taagan ma jiro kan ugu badan hadda markii research lagu sameeyay kunka badan geedka waxa waa dhimanaa waqti uu leeyahay life expand gooni uu leeyahay sida dadka bini'aadamka ay u dhintaan geedahan waxa uu hayay waxa jiraan factors oo geedaha oo baabiya ayaa jiraan ama sabab u noqdaan inuu geedkaas u dhinto marka waxaan soo gaaray gabagabada soo gaaray oo ah
waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo dhammaanteen inaan isku garab siino oo ah fikirkan geed abuurista in ay sii socoto waxaan rabnaa bisha cagaaran keligeed ma wadi karto because anaga capacity-gan uu gaabnaanaya laakiin markaan anaga Soomaali badan qof walba oo Soomaali ee fikirkan inuu qaato u yiraahdo because hay'adda markay ka madax banaan tahay dawladda ay ka madax banaan tahay oo siyaasad ma aha danaha oo dhirbeeristeeda iyo kulli si fiican ay u soconaysaa because waxa waaye anaga politician mani siyaasad manihi laakiin waxa waaye waxaan u taaganahay hadaf iyo ambition iyo waxa jirta wax bil aadanka oo dedication u yahay oo ah in dhirtan ay abuuriseed ay sii socoto ay meelo badan hadduu ilaahay inay gaarto ayaa rabnaa salaamu calaykum wa rahmatullahi aad iyo aad u mahadsan yahay doctorka waxaan ila joognaa laho horta runaantii doctorka aad u mahadsan yahay wax qabadka bisha cagaaran si kooban oo noogu soo gudbiyay intaana waa ka badnaa balse doctorku waxaan runtii waa nin qiimo badan kartidiisa iyo dadaalkiisana aan ku amaanayo ka maxamed ahaan marka waxaan rabaa oo kaliya intaanan dib mikrofoonka ugu soo celin aan ku celiyo hay'addan sanadkii horeeto maadaama uu nin madax hay'adda mas'uul ah ninka ugu sareeyay oo tilmaamay inuu afkiisa in kaga qiro sanadkii hore hay'addu meeqa kun oo geeday abuurtay sanadkaana meeqay abuurtay kan dambana muxuu rajaynayaa inta uu gudbin intaasaan rabaa iga raalli ahaada target keena wili ma gaarin waxaan oo qoran 1 milyan geed inaan sameyn karno hadduu ilaahay idmo December 31 hadduu ilaahay maalintii gaarto waxaan rabnaa inaan soo gudbino tirada geed aan abuurnay iyo tirada geed aan bixinay hadduu ilaahay idmo inaan soo gudbinaa rabnaa sababta waxaan rabnaa sanadka markuu sii dhamaanayo 31deeda markuu gaaro inaan soo bandhigo intaas kunoo geed ayaa bisha cagaaran abuurtay hadafka bisha cagaaran wuxuu yahay sanadkan 2024 1 milyan geed inaan abuurna ayuu yahay last year waxaan ahaynay barbarada ahaynay waa cusboonay dad cusub aan ahaynay waa kufkufaynay waa dhaadhacaynay wiilita waxaan ahaynay socod baradaan ahnay oo manihi dad oo hadda oo bisha cagaaran ordaysa manihi wiilita waxaa waaye waxaan ku jirnaa dadaal gurgurshaa ku jirnaa socod baradaan ahnay marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay sanadkii hore sanadkaana ka fiican oo ah waxa waaye hadda experience aan leenahay waxaan aaminsanahay sanadka kusii xogana inay awoodeen ay kasii badnaan doonto rabbi hadduu idmo oo meelo badan oo ku arki doontaan bisha cagaaran oo ku arki doontaan ayaan rajaynaynaa hadduu ilaahay marka inaan anaga aan meel walba ay gaarin waxay ku xiran tahay bulshada Soomaaliyeed ayay ku xiran tahay dadaalkooda ayna hadiina ay maxaa la yiraahdaa ayna garab galaan ayna support garaan ayay ku xiran tahay laakiin waxaan ni balan qaadina rabbi hadduu idmo in aan dadaalkeena aan sii labalaabi doono ayaan rajaynayaa insha Allah last year siddeed kun geeda gaarsiin marka kan insha Allah 31 December ama Twitterada ama Facebookena ama maxaa la yiraahdaa website-yadana waa ku arki doontaan tirada aan soo gudbin doono hadduu ilaahay idmo laakiin tirada mar walba sanad ku xuga uu ka sii balaarnaan doona rabbi hadduu idmo sababtoo waxaan rabaa mid kale inaan sheego waxaa jirto wadaad Kenyaati waxay kala soo xariiray Twitterka igala soo xariiray wuxuu yiri oo shaqo fiican ah haysaa kowde waxaan rabaa inaan miro ku siiyaan rabaa waay han ku yiri waa xariirka oo leenahay laakiin dhawaato waxay ka taagan tahay meeqan wuxuu yiri 1 milyan geeda miraan siinaya laakiin capacity 1 milyan oo geeda lagu soo qaadi lahaa hore iyo geeda way adagtay sababta waxa waaye waxaa lagu xisaabaa kiilada lagu xisaabaa marka aad soo qaadid jawaan marka soo qaadid oo diyaarad soo saartay walgu kiila lagu dhufanaya marka anagana capacity ma qabno waa isku dayna dhowr jeer inaan soo qaadno sida hadda kamid geedka la yiraahdo baobab oo loo yaqaano Soomaalida waxay yiraahdaan aan u maraynaa meel waxaa jirta tuulo lagu magacaabo geed sal weyn oo uu balaan demo uu cimriyo uu si maxaa yiraahdaa geedka sal weyn maxaa yiraahdaa yaa bari weynay ee Soomaalida yaa bari weyn ama yaa bari weyn turtaa oo ma geedkaas yaa waxaa la yiraahdaa baobab ayaa la yiraahdaa marka baobabwaas marka waxaa waaye caleentiisna waa la cunaa oo waxaa loo cunaa sida cagaarka loo cunaa mirihiisna waa la cunaa marka waxaan ka soo qaadnay dhowr jeer waxaan ka soo qaadnay maxaa la yiraahdaa maraan aan Nairobi aan tagay isaga waxa uu tagay waxaan ka qaaday almost 15 oo maxaa la yiraahdaa kiilo oo mirti baobab mirihiisa aan ka qaaday xarunteena ku abuurnay laakiin waay marka
we cannot go back forward oo matay karno waxa waayo waxay u baahan tahay dawladda inay kugu taageerto oo arinkan aan u fududeysay anaga wili waxaan rabnaa hadduu ilaahay inaan dawladda u fududeyno howlahan oo maanta Soomaaliya hay'adda keli oo bixin karto 15,000 oo gate bila muran ah oo in baawar la saar bish cagaarna ka jirto Soomaaliya oo dhan waxa ka jirta bish cagaaran keli ayaa awoodi karta 20,000 oo gate in baawar halkaas la soo dhigo inaan buuxino hore igaar u sii socoto iyadoo sidaas ahna haddana waxa waaye still good relationship lama lahani aniga iyo wasaaradda environment iyo kulli laakiin waxaan rajaynayaa way imaan doontaa taas ugu baxaa